adduunyadu waa imtixaan aadamiga lagu saleeyay waa dhibaato iyo ciriiri qofkana nolosha ayuu nacaa qofka islaamka iimaan ayuu ku tiirsan yahay hase yeeshee kirishtanka ugu dambayn waa uu isdilaa nafsigu waa mid aad u culus oo ugu dambayn ruuxa u keena ciriiri adduun iyo mid aakhiro ka fogow godsireed in aad qodo haddaad qodana ha fogaynin ku dhacaysid lama oge ha fogaynin ruuxii dhab ku jecel oo ha u qaadan dhalanteed jacaylka uu ku qaaday xusuusno weliga in jacayl awgii qays iyo leyla iyo cilmi iyo hodan god ay ugu jiraan qaarna dhaawacu u geystay awgii la ildaran yihiin dhammaan culumadii fu'aad kula sugnaa qaybtii caafimaadka ee gargaarka degdega garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa mar kale bilaabay in ay fu'aad quraan saaraan maadaama uu la yimid arrin mucjiso noqotay oo ah inuu ku dul ooyo naxash uu saaran yahay mayd weliba isagoo ku barooranaya inuu la mid yahay marxuumiintii horay u geeriyooday ee qabuuraha ku jira يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم si ay niyadi ku dheehan tahay ayay quraanka culimo diinka u saareen fu'aad cabbaar kadib ayay su'aalo ku salaysan noloshiisa wax ka weydiiyeen sheekh maxamuud cabdulle oo kamid ahaa culimo diinkii quraanka saarayay fu'aad ayaa ugu horreyn ku yiri shaydaanka iska naar wiilkaygiyo marka labaadna waxaad inooga warantaa jawigaagu sida uu yahay waa hubaal haddii quraan lagu saaro in aad wax waliba ay ka baxayaan dhibkana aad ka badbaadayso si ay naxariisi ka muuqato ayuu fu'aad u soo eegay dhankii culimo diinka waxa uuna bilaabay inuu afka kala furo dhammaan culimadii waxa ay wada rajeynayeen inuu dibkii ka baxay maba ogaba dawada jacaylka oo kaliya in ay tahay in la helo ruuxii uu calmaday ibanaha jacaylka dibka uu hayo waxa uuna fu'aad ku calaacalaya oo isrogiyo biyo horarka joogaan bayguruga wareegsane armiciida ramiyo manilula raqsideedii fooshane كيريديو ما فرحان مروديا
kaygii moode raxligiyo kitaabkiyo rasubkiyo quraankiisa waan ku raysan waaye waa la yaab waayaha caashaqa culamaa u diinkii la yaab iyo amakaag dartii afka iyo gacanta ayay isla waayeen waxaana ruuxba ruuxa kale uu lahaa waligay maqal uunbaan ku maqli jiray ruux jacayl uu hayo maanta si wuuna hor joogaa waa in aan wax u qabannaa laakiin waa su'aale maxaynu u qaban karnaa waxay noqotay jawaab aad u adag culamaa u diinkiina ay cabbaar ka fikirayeen fu'aad gabadhii uu jeclaa waa marxuum mana awoodno inaan ruuxeedii ku soo celinno ninkanna waalle ayuu qarka u saaran yahay talo maxaa tala ah cabbaar ayayna culamaa u diinkii kasii fikirayeen dhibaatooyinka haysta fu'aad iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen caafimaadkiisa inta ay culamaa u diinkii ka shirayeen xaaladda fu'aad ayaa raadiya u dhowaa fu'aad sariirtii uu jifay mar qura waxaa soo gashay hees qisada fu'aad aad u shaabahda oo ku saabsan wiil gabar uu jeclaa ka weecatay waddo kalena martay runtii fu'aad aad ayuu ugu helay waxaa kaloo cajiib noqotay fu'aad markii uu midhicsanayay erayada ku jira heestaasi ayuu waxa uu leeyahay alla macaanaa erayadan runtii abwaankii sameeyey walle jacaylka aniga ihaya isna wuu soo dhadhamiyey wilaygiyo waqtiga anigoo warlaay kaa waabi jiray hadday kugu timaadee wilaygiyo waqtiga anigoo warlaay kaa waani jiray markay kugu timaadee anigoo warqabin iga weecato weydaarato wadda kala martee anigoo warqabin iska weecato weydaarato wadda kala martee fu'aad weli isagoo ku mashquulsan dhagaysiga heesta qisadiisa aad u shaabahda ayaa waxaa dib ugu soo laabtay qolkii uu jiifay culamaa u diinkii ku mashquulsanaa baadigoobka caafimaadkiisa iyo sidii xal loogu heli lahaa noloshiisa maadaama qofkii uu jeclaha ay geeriyootay sheekh maxamuud oo hogaaminayay culamaa u diinka ayaa ugu horrayn fu'aad ku yidhi la soco qaybtii 9aad qisada fu'aad qisadan waxaa qalinka u qaatay isla markaana idila socodsiinayay anigoo ah cabdilaahi balwaan ayati horada isha anku sara urkayga qaado idaqado adun baan ku tabaye filkacagana aqoonta buxdheerto idinkood filkacagana aqoonta buxdheerto nafta booqalaate idinkood filkacagana aqoonta buxdheerto idinkood filkacagana aqoonta buxdheerto lagu aaminaa kalo adigoo kaleete waxaa oori dhiqi kara reernow arrimi kara waxaa oori dhiqi kara reernow arrimi kara lagu aaminaa kalo adigoo kaleete lagu aaminaa kalo adigoo kaleete